gabadha walaasheen ah waxaan idinka codsanayaa haddaad u qabtaan in cayda aad caynaysaan aan ku raaxaysanayo wallaahi kuma raaxaysanayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad ii maqlaysaan. waxaan idin leeyahay soo dhawaada saaxiibayaal. maanta barnaamij baan idiin wadaa, run ahaantii aan aaminsanahay inuu faa'iido badan idiin leeyahay, waayo waa barnaamij aniga laftigayga aan khibradeeda leeyahay. waa barnaamij aan soo arkay. waxaa la yidhi dab ninkii ku gubtaa kuleelkiisa dareema. barnaamijka intaan u gudagelin waxaan jeclahay run ahaantii inaan wax yar oo idinka baraarujino waana inaan idin siiyo. cidda iga qaadanaysa iyo cidaan iga qaadanaba, laakiin inaan sheego waa very important. barnaamijkaas wuxuu noqonayaa dadka caytama oo baraha bulshada ka caytama, komitiyada cayda aqora ma fiicno run ahaantii in qof bini aadan aad caydi. qofka in la caayaa waxay keeni kartaa in qofkii xataa asaga uusan ahayn iska aamino. cayda marka wax ma soo kordhiso, waxba ma keento, faa'iido ma laha. adiga caytamayana sharaf daray ku tahay. baraha bulshada marka lagu jiro dad waxaa jira cayda tirada badan iyo waxyaalaha dhibaatadaha oo kale ay qofka damage u geystaan. run ahaantii qofkan markaan ku leeyahay damage u geystaan, dad waxaa jira hadda youtuberada ku jira oo dad cadaan ah oo doodona ha ahaadaan, waxaa jira maryaha dhigay, wax kalena maahan, waa qoraalka dadku ay soo qorayaan keliya. marka waxaan la jeedaa gabadha walaasheen ah waxaan idinka codsanayaa haddaad u qabtaan in cayda aad caynaysaan aan ku raaxaysanayo wallaahi kuma raaxaysanayo. haddaad u qabtaan gafka aad u geysanaysaan aan mataqaanaa aniga aad igu hiilinaysaan wallaahi iguma hiilinaysaan, mana ku faraxsanin. gabadha walaashay ah wixiina soo kala dhex gaaray wayna soo dhex mareen, aniga ayada bayno ahay. walow annagu aan baraha bulshada iskeenayo waxba naga qarsoonayn, haddana walaal falcelintaada ha ahaato mid good manner ah, ha ahaato mid maskaxaysan, ha ahaato mid degan, ha ahaato mid qofkii u faa'iideynaysa, aysan noqonin mid qofkii dhibaato u geysanaysa. falcelinta aad falcelinaysid committeega waxaa lagu furay in aad qofkan ku caawisid, wuxuu ka khaldan yahayna ku sheegtid, wuxuu ku saxan yahayna aad ku taageertid. laakiin marnaba ma aqbalayo qof in la caayo oo weliba si xun loo caayo oo weliba lalafa caayo. haddaad u qabto anaa ku faraxsanahay kuma faraxsani, wallaahi kuma faraxsani oo ilaah iga maqlaayo. waa weese qabaa, ma ku faraxsani gabar walaashay oo la caynaayo, ma ku faraxsani gabar walaashay oo la niyad jabinaayo. barnaamijka waa kasoo hadli kartaa, waxa weeye wax waa sheegi kartaa, qofka waa u tusaaleyn kartaa, laakiin cay marnaba ma aha wax wanaagsan. gabdhaha Soomaaliyeed baa horta baraha bulshada aad ugu badan runta marka laga hadlo, ragga waa ugu badantii. okay, waxyaalaha keena marka inay gabdhaha Soomaaliyeed in la niyad jabiyo oo hadafka ay lahaayeen, nolosha ay ka lahaayeen in la niyad jabiyo, waxyaalaha keena wax idinka cadow isku noqda. gabdhaha laftigooda cadow isku ah, gabar kala caynaysa, gabar kala bahdilaysa, heer waxay gaaraysaa qofkaana caynaysaan oo ajnabi aado oo Soomaali dhanka ka goosto. gabar hadda arkaysid ajnabi guursanaysa, gabar diinta ka baxaysa, gabar maryaha tuuraysa, waxaasoo dhan waxay ka bilowdeen effect iyo damage idinku aad u geysateen. marka ay cayda u geystoon idinkoo dhan maaha, inta caytamisan ka hadlaya dadka baraha bulshada ku jiraa dareemi kara. idinku ma iska hadasheen wallaahi. ugu dambeyntii alcumuum muhiimadda aan ka leeyahay waxa weeye intaan barnaamijka u gudagelin aan usoo hormariyay carartan waxaa waaye in aad walaasheen sidaa shalay u garab taagnaydeen uga garab taagnaataan, sidaa shalay u caawinaysaan aad u caawisaan, sidaa shalay madaxeeda kor ugu qaadaan aad ugu qaadaan, sidaa shalay subscribe tirada badan u siisaan aad u siisaan, aad tustaan inaad garabka shalay aad u taagnaa weli u taagantiin. intaas idinka codsanahay. aniga anaa cafiyey waxa walba wallaahi, cafi aliya masaabax baan leeyahay. intaas waxaan uga baxayaa barnaamijka arartiisa koowaad. waxaan jeclaha marka ha ku faafin baraha bulshada waxyaabaha qaar. haddaad adiga gmail haddaa isticmaalaysid, haddaa facebook isticmaalaysid, haddaa youtube isticmaalaysid, intaba iska ilaali intaan si fiicanna barnaamijkan aad ku anfacaya u dhegeyso. qodobka koowaad, sirta dadka ha faafin. okay, sir baad faafisay, shaqadaada mustaqbalka xataa damage bay ku yeelan kartaa. waxaa lagu arkayaa qof aan mas-uul ahayn. marnaba dadka ha la wadaagin ID kaarkaaga iyo number sireedka akoonkaaga baraha bulshada marna ha la wadaagin. ID kaarkaana wataa
qof aa u dirtid ha ahaato wax haddaa xataa laga maarin waayo ha ahaato inaa mataqaanaa buluur ku samaysid yacni meeshii lambarkii iyo wax ka khalkhalatid xataa inaa id kaarkaaga iyo nambar sireedkaaga aad qof la wadaagtid waxay kugu noqon kartaa oo baraha bulshada aad gelisid khatarteeda ayay leedahay baraha bulshada aad ku aarsanaysa iska jooji ha noqon qof baraha bulshada ku aarsada haddaad noqotid qof mar walba baraha bulshada ku dagaalamo oo ku aarsado oo wax yacni qofkii la ficil qaata waxaad noqonaysa dadku waa lagu daawanayaa ishaa lagala socdaa laakiin waxaa la ogaanayaa shaksiyadaada dhabta ah iyo waxa aad tahay weligaa ha faafin meesha aad joogtid locationkaaga iyo meesha aad degantahay inaa faafi iska ilaali baraha bulshada ku faafisid si fudud baa macluumaadkaaga lagu helayaa meesha aad joogtid lagu helayaa haddaad cadow leedahay haddaadan lahaynba ma qurux badna inaa locationkaaga la ogaado waa la qariyaa weligaa baraha bulshada ha ku faafin ereya xunxun sida suubaa ku dhashay ereyadaas xunxun waxay kugu damage saameyn kugu yeelan karaan berri waxay yacni dad baa dhaqan xumo baraysaa weligaa baraha bulshadana ereya xunxun ha ku faafin weligaa iska ilaali weligaa cay iyo ceebeen qof kale ha usoo fadhiisan baraha bulshada ta soo fadhiisatid inaad qof ceebaysid oo caydid iska ilaali waxay kugu noqonaysaa damiir xumo shaksiyad xumo iyo waxay kugu noqonaysaa dhaawac dib adig kugu soo laabta wax adiga dib kugu soo laabtay noqonaya qodobkan wuxuu ku socdaa gabdhaha baraha bulshada ha la wadaaginina sawiro khaldan markaan leeyahay nooc kastay noqon karaan adoo madax qaawan bay noqon kartaa adoo gaada bannaan bay noqon kartaa whatever sawir adiga khaldan inaad la wadaagtid baraha bulshada soo dhigtid ama qof saaxiibkaaya aad whatsappka ugu dirtid waxay kugu noqon kartaa berri dhaawac weyn oo aadan weligaa kasoo kaban 1000 sano laga sheekeeyo qodobkan waxa waaye qodob muhiim ah laakiin dadku aysan fahansanayn marnaba ha la wadaagin waxyaalaha adiga kugu gaarka ah shaqadaada mushaarka aa qaato qofna baraha bulshada ha la wadaagin ama saaxiibka ha la wadaagin ama meel ha la soo fadhiisan si guud waxbaa u sheegi kartaa laakiin si qoto dheer oo faahfaahsan weligaa ha la wadaagin baraha bulshada oo yaan la ogaan mushaarka aa qaadatid meesha aa ka shaqaysid waxa aa qabatid kuwa shaqada laftigooda ku siinaya hadhow xataa haddaad interview maraysid iska ilaali in aad sheegtid kambanigi hore aad u shaqayn jirtay iyo waxa aad ka qaadan jirtay iyo waxyaalaha ku xumaayeen weaknesskaaga iyo kooda inaad sheegtid iska ilaali hadhow shaqadaada ay xataa saameyn ku yeelan kartaa oo waxa laga yaaba interviewgaas inaad kuba guulaysanba waayo qof ceebtiisa bannaanka taalaaba tahay kambanigi horena ceebeeyey oo ceebihiisa bannaankeen qodobkan aad buu youtuberada muhiim ugu yahay runtii weligaa ha bixin falcelin cara leh ama reaction cara ku saabsan oo xanaaq kaa muuqdo oo si fudud ama taqaanaa qof ku dhaleecaynaysid ama ku ataagaysid ama aad ku jarjaranaysid waxay dhaawici kartaa waxay keeni kartaa in wax badan oo khaldan lagaa ogaado carada tirada badanna waxay kaa keeni kartaa in lagaa guulaysto oo ceeba ku qarsoonaa aad bannaanka imaadaan waayo qofku markuu caraysan yahay control ma laha weligaa reaction carale iska ilaali markaad carootid isdeji 2 ragcadood tuko muddo ka naso break qaado waddankan UK aan joogno casharada imtixaanka lagu galo sida theory oo kale waxaa la leeyahay haddaad qof isdagaashaan adoo driver ah gaariga wada haddaad qof isdagaashaan oo kale waxaa lagu leeyahay 15 take a break baa lagu leeyahay waqti qaado 15 daqiiqo 30 daqiiqo oo nasinina qaado kadib waa degaysaa markaa kale dad gaariga soo qaado marka waxaa la iska ilaalinayaa carada waxay keentaa inay wixii adiga aad ka carootay wax ka badan inay imaadaan oo aad dhibaato geysatid weyn oo aan weligaa kaa harin ama aad criminal confession geshid ama ay dhibaato adiga mustaqbalkaaga dambe ay saamayso weligaa cidna ha la wadaagin fikirkaaga nololeed mustaqbalkaaga iyo waxaa qabsan doontid waayo waxaad noqonaysaa qof wixii uu qabsan lahaa iyo secretkiisa dhan bannaanka yaalo aan secret lahayn qof aan sir lahayn baa noqonaysaa waxyaalaha aad ka damacsan tahay mustaqbalka dambe cidna ha la wadaagin weligaa intaa noosha baraha bulshada ha la sii wadaagin qof kale ha la sii wadaagin adiga gaar ha ku ahaado waayo waxaan adaa qabsan doona ee qof walba nolosha hadaf buu ka leeyahay sidoo kale adiga hadaf baa ka leedahay daawanaya ani hadaf baan ka leeyahay hadafka aan leeyahay haddaa marka bannaan keeno waxba iima yaalaan sirta anigu aan leeyahay waa qof walba sir gaar u leeyahay qof walba waxa u taalla sir isaga u qarsoon baa jirta oo aysan cidna la wadaagin sirtaadaas marka adiga ku gaarka ee nololeed ee mustaqbal aad inaad qabsatid cidna ha la wadaagin marka baraha bulshada iska ilaali inaad la wadaagtid mustaqbalkaaga waxaa qabsan doontid iyo waxyaabaha dambe aad rajaynaysid inay ku hirgalaan qodobkan aad buu muhiim u yahay weliga guuldarradaada cidna ha la wadaagin dadka haddaa la wadaagtay waa guuldaraystay waa niyad jabay homeless baa niyaddii aga jabtay waxyaalahaas igu dhacay waxyaala aan rajaynayaan waaye
waxyaala mustaqbal oo tiro badan oo aan rajada kala haabaan waayo haddaad tirahdid qofkan waa kugu qoslaya ilmaha raxo kuma qabanaya adigana ceebtaada banaanka taalaaya qof waxaa tahay han iyo hami iyo hanaan mustaqbal oo dhammaystiran aan lahayn waayo si fudud baad ku niyad jabtay baraha bulshada ugu faafisay in aan lagaa guulaystay ama aad guul daraysay marka weligaa guuldarrada cidnaha la wadaagin qodobkan kale idiin har aad muhiim u yahay oo weliba aan qodob anigu aan ogahay oo aniga aan dareemi karo dhibaatada uu leeyahay weeye weligaa ha la wadaagin qoyskaaga noloshaada iyo reerkaagaba baraha bulshada ha la iman waxyaalaha anigu run ahaantii naftayda aan kaga shalaaya ka mid ah oo aniga experience aan u leeyahay baraha bulshada reerkaaga iyo ilmaha banaanka ha ka ahaadaan beri ha ka ahaadaan si aan dadkan ku daawanaya oo sakaa daawanaya ma ku faraxsana xataa ayaga laftigooda kor bay kaa daawanayaan way u jeedaan inaad khalad ku socotid dadka inta wanaagsana way kuu sheegaysaa kor unbay kaa daawanayaan muxuu soo dhiga unbay leeyihin marka baraha bulshada ha la wadaagin qoyskaaga ilmahaaga iyo mataqaana gurigaaga dad badan hadda barnaamijkan oo kale gurigayga waxay ku nool yihiin routine baan samaynaa subaxdii baan kacaa waa cadaydaa waa fariistaa wax adeeg ku gaar ku yihiin gurigaaga adiga cidna ha la wadaagin qof asriiti uu kasoo kacayay iyo si u jiifay qaabka u jiifay dadka soo hordhigay ma fiicin run ahaantii qayb ka mida oo xanuunkeedan anigu waan soo arkay oo ma ay wanaagsan inaan qoyskaaga iyo noloshaada gaarka ah baraha bulshada kadib wax wanaagsan maaha qodobkan u dambeeya waa qodob run ahaantii aan rabo inaan anigu idinla wadaago waa qodob aad muhiim u ah oo aniga dhaqan ii ah wallaahi aad iyo aad buna muhiim u yahay weligaa inta aan noosha ha isfaanin dadka hortooda ha ku faanin ha oranin saan baan ahay waxaanaan sameeyaa halkaanaan marayaa halkaasaan gaaranahay waa qurux badnahay saanaan ahay weligaa cidna ha u faanin ina hebel baan ahay reer hebel baan kasoo jeedaa waa reerkaaga waa sheegan kartaa oo faamilkaaga waa ka hadli kartaa oo waxa weye dadka kasoo jeeda waa laakiin qaab faan ah hebel baan ahay ina hebel hooyana hebel baan ahay aniga halkaasaan marayaa aabbahay waa ina lixdhabaacsan ka taabtay weligaa ha faanin noloshaydii anigu waxyaalaha aan wallahi mararka qaar anaa ismaaga dadka hortooda intay iga aamin lahay in anigu aan faanayo waxaan aad iyo aad iskaga ilaaliyaa in aan tuso in aan faanayo qofna uma ha u faanin faanka iska ilaali faanku wax faa'iida ah malaha qodobka ugu dambeeyana waa qodobkaas waana qodob secretkayga nolosha ii gaarka anigu aan aad ugu dhaqmo comment sectionka inoogu soo reeb waxyaalaha aan ka faa'iiday iyo faa'iidada uu leeyahay iyo haddii aad dhibaato kale kasoo aragtay oo kale inta hadda aan kasoo sheegay haddaad dhibaatada aad kusoo aragtay fikirkaaga nala wadaag waxyaalaha aan ka hadlana oo dhan waxyaalaha baraha bulshada lagu faafiyo oo qofka dhibaato badan u keeni kara wey inta aan idiin soo sheegayna waxay anfacayaan dhalinyarada ay uga fakeraan waxay baraha bulshada ku faafinayaan walaalkiin qadar oo idin leeyahay barnaamijka horta like gareeya intiina ay daawanaysa barnaamijka like saa u saara sii share gareeya la wadaaga asxaabtiin waa barnaamij aad u anfacaya dhammaantiin waxaa idin leeyahay walaaladin waa isjecelnahay ha la isjeclaado farxad ha lagu wada noolaado wanaag ha lagu wada noolaado qofkii khaldanna khaladkiisa waa tusi kartaa waa u sheegi kartaa qaab aadan cayn ku tus qofkii aan noqonin qof caytama weligaa ha caytamin qofkana si degan wax ugu sheeg inta aa noosha kaga baxaya asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.